waxaan ogeysiinaynaa casharkan qaybta Soomaaliga ah markii ay dhamaato gadaal inuu kala socdo qayb English ah oo aan ugu talagalnay caruurta qurbaha joogta ee aan si fiican Soomaaliga si dhameystiran u wada fahmeyn in ay intaas dambana si dhageystaan qaybta Soomaaliga faahfaahsan markay dhageystaan si fahamkii ugu dhameystirmo marka waalidiin badan dhici karta inay caruurtooda ka caawi karin si sax ah casharkii inay ugu sharxaan fahamkiisi qaybtaas dambe u shita markaas si dhameystiran u fahmeysaan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kusoo dhawaada casharkii saddexaad ee barnaamijkii tarbiyada caruurta iyo islaamka iyo dhaqanka wanaagsan. maanta waxaan ka hadli doonaa aadaabta iyo akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan ee aan u baahannahay markii aan wax cunayno. marka koobaad waxaan ku mahadinaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo na siiyay waxaan cunno iyo waxaan cabno. waxaa jira dad fara badan oo aan haysan waxay cunaan. waxaa jira caruur fara badan oo meelahaas qashinka la tuuray ka raadinaya waxay cunaan. waxaa jira dad waaweyn oo rooti qallalan cunaya. sidaa darteed waa inaan ku mahadinaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nicmada uu na siiyay. islaamku wuxuu na baray inaan si caafimaad ku jiro wax u cunno. sidoo kale haddii aan u cunno sidii islaamku uu na baray waxaan noqonaynaa dad fiican insha allahu tacaala. maanta waxaan baran doonaa 10 qodob oo aadaabta cuntada ah. kabacdi waxaan akhri doonaa qisadii casharka. qodobka koowaad wuxuu yahay ee casharkeena aan ku bilaabayno waa in aan gacnaha dhaqanaa markaan rabno cuntada inaan cunno si caafimaad ah wax ugu cunno. wasaqda iyo waxaas oo dhan jeermiska inaan gacnaheena ka dhaqna weey. markaasuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam barakatu tacaami alwudu'u qablah walwudu'u bacdah. cuntada baraka waxay ku leedahay iyo caafimaad in qofku gacanta uu iska dhaqo intuusan cunin iyo markii uu cuno intaba inuu iska dhaqo. qodobka labaad wuxuu yahay in aan niraa bismillah oo aan bisinka u qabno ilaahay magaciisa aan ku bilowno. maxaa yeelay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay idaa akala axadukum falyadkur isma allah aw kama qaala sala allahu calayhi wasalam. qof adinka idinka mida haddii uu doono inuu wax cuno magaca ilaahay ha sheego. fain nasiya an yadkura isma allahi fi awalih falyaqul bismi illaahi awalahu wa aakhirah aw kama qaala sala allahu calayhi wasalam. haddii uu qofku halmaamo bilowga hore inuu bisinka sheega iyo magaca alle gadaalha ka yiraahdo bismi illaahi awalahu wa aakhirah markii aa xusiisatid oo cuntadii dhexdeeda ah ama cuntadii dhammaadkeeda ah intaba ayaad la imaanaysaa bisinka. intaa kabacdi bisinka kabacdi waxaan samaynaynaa waa in aan ku cunnaa gacanteena midig. gacanta midig waa inaan ku cunnaa. qodobka saddexaad waa gacanta midig inaan ku cunno. qodobka afraad waa in aan dhinaceena ka cunno. dhinaca annagana soo xiga inaan cuntada ka cunno weeye. haddii ay jiraan wax aan u baahannahay ee aan dhinaceena oolin sida hilibkii ama qudaartii waxyaalahaas dhinac kale waa ka soo qaadan karnaa. laakiin sax ma ahan inaad cuntada qofkan dhinaciisa iyo kan hoostiisa iyo aad ka qaadatid. sax ma ahan, dhaqan fiicanna ma ahan. dadka qayb ka mid a xataa qof cunto uu diyaarsado inuu qaato uu rabo ayay ka qaadanayaan. taas ceeb weyn weeye. wuxuu leeyahy asxaabigii la dhihi jiray cumar binu salama oo nabiga calayhi salaatu wasalaam adeerka uu u ahaayo hooyadiis uu qabay. waxaan ahaayuu yidhi wiil yar kuntu ghulaaman fii xijri nabiyi sala allahu calayhi wasalam. wiil yar ayaan ahaa oo nabiga yacni waalid u yaho oo nabiga uu tarbiyeeyo oo nabigu hooyadiis uu qabo. wa kaanat yaddii tatiishu fi saxfa. gacantayduna waxay ku wareegaysay xeerada dhinacyadeeda markii aan nabiga wax la cunayo calayhi salaatu wasalaam. markaas ayaa nabigu wuxuu yidhi yaa ghulaam sami illaah wakul biyamiinika wakul mima yaliika. war wiilkaanow ilaahay magacow bisinka la imow bismillaah dheh gacantaada midigna ku cun dhinacaagana ka cun. sidaasaa nabigeenu na baray calayhi salaatu wasalaam. marka dhinaceenna inaan cuntada ka cunno weeye. gacanteenna midigna aan ku cunno bisinkana aan ku bilowno. qodobka shanaad waxa weeye in aan cunto afkeena la akaliya qaadano ee aanna wax naga badan aanan qaadan. dadka qayb ka mida sacabka inta buuxiyaan oo afka ka buuxiyaan ay qayba ka daadato ay qayba gacantooda kusoo hartaa. qaybta gacantooda kusoo hartana saxankay kusoo celiyaan. qalad weeye. taas sax maan dhaqanka fiican iyo akhlaaqda islaamkana ma ahan.
qayb ka mida weliba saxanka ha ku soo celiyeene way ku firdhiyaan markaasay dadkii kale hoostooda ku firdhinayaan cuntadii afkooda ka timid. taasi gebi ahaanba dhaqan fiican maahan, islaamku dhaqan uu diiday weeye. xataa lama ogola waxyaalaha dadka ka dhexeeya inaad qaadatid. haddii cad hiliba uu yaalla inaad inta qaadatid oo afka gashatid oo ka goosatid soo celidid lama ogola. waxa aa qaadata waa qaata, laakiin waxaa laga rabaa marka horeba maadaama dadka uu ka dhexeeyo inaad gacantaada uga goosatid inta aa u baahan tahay, afka inta gelidid ha soo celin. taasina qodobkaasi waa sidaas. qodobka 6aad oo aan ka hadlayna waxa weeye in aanan wax cunin annagoo taagan ama aan soconno. annagoo taagan ama socda in aanan waxba cunin weeye. qodobka 7aad waxa weeye in aan fariisanno markii aan wax cunayno. qodobka 8aad waxa weeye inaan ducadii akhrisanno markii aan cuntada dhammaysanno. alxamdu lilaahi aladii atcamanaa wasaqaanaa wajacalanaa muslimiin oo kale ducooyin fara badana soo aroore inaan nidhaahno ilaaha mahad iskale cuntadana siiyey, waxaan cabnana siiyey, muslimiintana naga dhigay. ducooyin fara badanaa jira, midaasa ugu gaaban. qodobka 9aad waxa weeye in aan nadiifino weelasheenna iyo faraheenna intaba, sida nabigeena uuna baray calayhi salaatu wasalaam. wuxuuna baray inaan weelasheenna nadiifsano, in aan faraheenna weliba cuntada kusoo hartay inaan leefno oo aanan iska dhaqin ayaa nabiguna baray calayhi salaatu wasalaam. maxaa yeele ma ogid barakadu qaybta ay ku jirto, makan saxanka ku haray, makan gacanta kaa raacay, ma ogid. markaasuu nabiguna baray calayhi salaatu wasalaam inta aanan iska mayrin ama aanan tirtirin inaan faraheenna ka leefno cuntada saaran. qodobka 10aad waxa weeye in aanan cuntada wax ka sheegin. maa caaba الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam qatu طcaama in ishtahaahu akalah wa ilaa tarakah. nabigu calayhi salaatu wasalaam weligiis cunto wax kama sheegin. haddii uu cuntadaas naftiisu ku qanacdu rabo wuu cunayay, haddii uusa u baahnayna wuu ka tegayay. annagana nabigeena inaan ku daysano way calayhi salaatu wasalaam ee aan cuntada nala siiyo aanan wax ka sheegin. hadda waa waqtigii qisada casharka. qisadan ila dhegeyso. maalin maalmaha ka mida ayaa nabigeena waxaa u yimid calayhi salaatu wasalaam nin asxaabiya oo aada u gaajoon. ninkii asxaabiga markuu nabiga u yimid oo gaajada u sheegay, nabiguna markaas guryihiisii iyo midna waxba lagama helin. nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii uu la hadlay oo yiri yaa ninkan caawa marti qaadaya. nin saxaabiya ayaa yiri anigaa marti qaadaya. ninkii asxaabiga ahaa ayaa kaxeeyey ninkii gaajoona. gurigii markii uu geeyana xaaskiisii waxay u sheegtay cunto inaysa oolin, kaliya ay yaalaan wax yar oo caruurta ku filan. ninkii wuxuu ku yiri ninkani waa marti uu nabigu nagu soo daray calayhi salaatu wasalaam, lamana qadi kare caruurta seexi, cuntadana isaga u keen. markaa cuntada u keentidna layrka iyo faynuustii wixii la shidanayay noo dami, annagana saxmo iyo qaado noo keen, aan ka shanqarino iska dhigno inaan wax cunayno, si uusan u xisho ninka martiga ee uu u moodo inaan wax cunayno. markaas ayay sidii sameeyeen. ninkii martida cuntadii markii loo keenay ayay saxankii iyo qaadadii isku bilaabeen, ayay qow ka siinaya oo muujinaya inay wax cunayaan ayaguna. ninkii asxaabigaha si fiican ayuu u dhargay ee gaajoonaa. markaas ayay habeenkii sidii ayagoo gaajo ku seexdeen. ninkii martiga ahana uu dhargay. ilaahay subxaanahu watacaala ayaa waxay sameeyeen ogaaday oo ku raali noqday. ilaahay qur-aan uu kusoo dejiyey. nabiguna waa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam. wuxuu nabigu ku ammaanay waxa ay kula dhaqmeen martigoodii. ilaahayna qur-aanka wuxuu ku yiri wayu'thiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa. waxay macnaha ay naftooda oga dooreen dadkii kale ayagoo xataa gaajo ay ku sugan tahay oo baahan. marka qofka muuminka ahi inuu dadka kale waxa uu haysto wax ka siiyo ayaa xadiidkuna barayaa. intaas casharkeena kusoo koobaya. waa ku mahadsantihiin dhegeysiga aad dhegeysateen. waxaan ku kulmi doonaa casharka kale. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Welcome again to the third lesson of the Islamic upbringing. Today we are going to talk about the etiquettes and the good manners of eating. There are many manners and etiquettes of the eating, but we will learn 10 points
then we will read the story. But before that, we thank Allah for giving us food and drink. There are so many people who do not have anything to eat. There are so many children who search dustbins for scraps of food. There are old men and women eat dry bread. So we should always be thankful and respectful for the blessings and gifts of Allah. Islam teaches us healthy eating habits. So let us eat and drink in according to the teachings of Islam. Then we will be good Muslims. Now we will learn the points. Number 1, we wash our hand before we eat, because Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Barakatu ta'ami al-wudu'u qablah wal-wudu'u ba'dah." The blessing of the food is to wash your hand before you eat and after you eat. Number 2, we say Bismillah, in the name of Allah, before we eat, because our Prophet sallallahu alaihi wasallam said, إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if any one of you wants to eat, let him say in the name of Allah. But if he forget to say in the beginning in the name of Allah, let him say Bismillah awwalahu wa akhirah, in the name of Allah at the beginning and at the end. Number 3, we eat with our right hand. We do not use our left hand. Number 4, we eat from our side of the plate, because there was Sahabi whose name was Umar bin Abi Salama. He was the stepson of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He said, كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. He said, I was a boy who was in the care of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then my hand was going all around of the plate. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to me, oh boy, say the name of Allah, say Bismillah, and eat with your right hand, and eat what is near to you. So let us eat from our side. There are people who eat from the sides of other people. That is not good, absolutely. But if there is something which is not in your side, basically the meat or fruit or vegetables, you can take it. You can take what you need. But everything which is in your side, eat from your side. Number 5, we do not eat while standing or walking. Number 6, we always sit and eat. The Prophet ﷺ prevent to eat while standing or walking. Number 8, we read the dua after eating. There are many du'as that Prophet Muhammad ﷺ taught us to say after eating. So we say Alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Praise be to Allah who has fed us and given us drink and made us Muslims. Number 9, we always clean our plate and lick our fingers, because the Prophet ﷺ taught us to do so. Number 10, we do not complain about the food, as the Prophet ﷺ taught us, and he never criticized food.
ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. The Prophet صلى الله عليه وسلم never criticized food at all. If he desire, he used to eat. Otherwise, he used to leave it. Now is the time of the story. But before we read the story, there is other story, and there are many incorrect eating habits. So you should point out them. We will read that story. Listen and point out the incorrect eating habits. Ayub's mother called him to eat while he was playing with mud in the garden. He came straight to the table, wrapped his hands onto his clothes, and stood at the table. He loved rice very much and started eating while talking to his sister. He could not eat all his food because he dished out so much. He left his plate dirty. He messed the tablecloth. He grabbed a banana and ate it with his left hand. He was full by now, so he left the table and returned to play in the garden. Listen to this story again and again and point out all the incorrect eating habits. Now is the time of the story of the lesson. It is hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Once a person came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and complained about his hunger. The Prophet sallallahu alaihi wasallam did not have anything to give to the person, and asked his companions if any one of them could feed the hungry man. One of the companions agreed to take him to his home. When he arrived at the home, his wife told him that there was very little food at home, just enough to feed the children. He said to his wife, "This person is the guest of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Put the children off to sleep and let us feed the guest." As the guest sat down to eat, they put out the lamp and pretended to be eating with him in the dark. The guest ate to his fill, while the rest of the family stayed hungry. Allah subhanahu wa ta'ala was very pleased with the sacrifice of these people and praised them in the Quran. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.